dhaqaatiirta ka socotay dalka Masar ayaa waxa hogaaminayay safiirka dawladda Masar u fadhiyay Soomaaliya Maxamed Naasir waxayna kormeer ku saabsan xog ururin ku tageen cisbitaalka hooyada ee dhalaanka ee Banaadir sida qaybta nafaqa darrada caruurta yaryar iyo qaybta qaliinka hooyada iyo dhalaanka maamulka cisbitaalka Banaadir oo warbixin ka siiyay xaaladda cisbitaalka ayaa sheegay in cisbitaalka u baahan yahay dawo qalab dibris lagu sameeyo iyo tababar la siiyo shaqaalaha maadaama wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya ee dhawaan la wareegtay gacan ku intiisa Dr. Amir Rashid oo kamid ah dhaqaatiirtii ka socotay dalka Masar ayaa sheegay in ay ku soo arkeen kiisas fara badan oo quseeya caruurta iyo hooyooyinka waxaana xusid mudan intay ku sugnaayeen gudaha cisbitaalka inay sameeyeen qaliin degdeg ah maanta waxaan soo aragnay qaar kamid ah kiisaska caruurta وفودينا يدغاتيرتين تخصص كله وحنا برتين قار كمية كيسس كاسي وانا سيود الدونا مع المكلة سيان وارقنو وحنا وقبلنا قارهان لبض قيبات كيسس كاسي سفير كدولة مصر أفضل سوماليا محمد ناصر أيا شيء إن ضد كسومالي ذا مسار ذا يهين ضد ولا لا سمر كانوا كده حير القطر كان عامل دونان وحياة بضن اتصالا بالاتفاق اللي تم خلال زيارة معالي وزيرة الصحة الصومالية إلى القاهرة منذ حوالي 10 أيام وتم الاتفاق مع وزيرة الصحة المصرية على قيام مصر بدعم قطاع الصحة في الصومال وبالتركيز بصفة أولية على موضوعات المرأة والطفل فالحقيقة في وفد مصري بيزور دلوقتي موجود معنا هنا في مقدشيو قام بزيارة المستشفى بنادر النهاردة اطلع على مختلف الأقسام هدف الزيارة ان هو نقدر نحدد الاحتياجات المطلوبة علشان نخلي مستشفى بنادر مركز تميز وبيقدم خدمات للشعب الصومالي دولة مصر ayaa haatan dadka Soomaaliyeed ka taageerta dhinaca waxbarashada iyadoo gacanta ku haysa iskuulka 15 May hase yeeshee kormeerka maanta ay ku tageen isbitaalka hooyada dhalaanka ee Banaadir ayaa ka dambeeyay kadib markii heshiis ku wada saxiixdeen magaalada Qaahira ee dalka Masar wasaaradda caafimaadka labada dawladood Cabduqaadir Shacab warbaahinta qaranka Muqdisho